بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan joogaa maxadada weyn ee tareemada magaalada Marburg. Saad u jeedin tareenkan waa tareen kamid ah tareemada xamuulka qaada kan hadda u jeedin wuxuu wadaa alwaax ama geedo la soo jaray geedahaas oo cabir iyo qaab la og yahay loo soo jarjaray maxay tahay maanta sababta ama tusaalaha aan soo duubay geedahan ama looxdan la soo jaray saad ogtiin wadamada hormaray meeshii geed laga gooya geed ayaa lagu beeraa بالعكس ماشي anaga Soomaaliya meeshan geed ka goyno ay isan jirin ba cid ka fikirayso geedihii laga jaray geed la mid ah ku beerisan jirin ilaalinta deegaanka si loo qayb qaato qof walba oo Soomaali jooga meeshu dhir ka jiro ama haduu rabo isticmaalo dhuxul haduu doono qaabku doono kala hawo isticmaalay waxa wanaagsan in sida dad joogan hormaray ba meesha geed ka gooyaan ee geed ugu beeraan in ay kana qof walba xil iska saaro meeshu geed ka jiro in laba geed ka beero si dhulkeeni sidoo ahaan jiray greenka ah uu dib ugu soo noqdo loogana baxo abaaraha ka jira Soomaaliya saad ogtiin dalka waxa ka jirta abaar aad u daran oo halkaysay naf iyo maalba dad badan gurigooda ka soo barakaceen bishii Ramadaan ugu soo foodleh aan u duceeyno dalkeena dadkana u istaagaan in ay kan sokooda ay سيدي فوق بحلاين محيلا دادن استاجن قاب كده فوق بحلايت دب كم بحسد يونايتد نيشن كوسو غرمتي iyo qarmo madow iyo hay'ad kuso gurmataan baahay ka amsaar karto Soomaalida waxa tirada biyo gacmaha lagu dhargaa marka aan ku dadaalnaa anaga dalkeen u horumarsan lahayn aan ku dadaalnaa wax wada qabsan lahayn wad ma santiin salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh